wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in al-shabaab saaka weeraro ismiidaamin ay ku qaadeen saldhig military oo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Qaayib oo ka tirsan gobolkaasi. Dagaalkii xooganaa ee saaka ka bilowday deegaanka Qaayib oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaa la sheegay in laba gaari oo lagu soo raray walxaha qarxa lagu weeraray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo taageero ka helaya kuwa militariga Soomaaliya. Sidoo kale wararku waxa intaa ku darayaan in rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen deegaanka xilli dagaal xoogan uu ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwii soo weeraray. Xaaladda deegaankaasi ayaa hadda lagu soo waramayaa in ay yara degan tahay, waxaana deegaanka hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegaya in xaaladdu hadda ay degan tahay, inkastoo waa berigii hore ee saakay dagaal xoogan uu halkaasi ka dhacay, taasoo baqdin gelisay dadka halkaasi ku nool. Ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa gudaha deegaanka Qaayib waxay ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga, waxaana si buuxda gacanta deegaankaasi ugu haya ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka. Deegaanka Qaayib waxay ka mid tahay meelihii dhawaan lagala wareegay al-shabaab. Ciidamada deegaanka oo garab ka helaya kuwa dowladda ayaa qabsaday deegaankaas oo 12 sano ay maamulayeen al-shabaab. Khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ilaa ay hadda lama soo xaqiijin. Waxaa gebi ahaanba hawada ka maqan isgaarsiinta oo adag tahay in meelaha qaar lala xiriiro.